وهجاك داود يالو واحد كسر دواتان قيبتين اللباد برنامج التلفزيون كبرشوا كجاه ليو كجاه هذيان راه مرنو هلدا أرمها عدالة برنامج كان أيوة حسك كاشدي EAG يوسارد عدالة وحنا فلنسا آدم أكاديمي سو كل واحد كداوتان تلفزيون كبرشوا تضبط كور برنامج كأيوة وحنا كورة سنة قريقانو وحنا كهذا لني برنامج كان مهرني هلدا عدالة مهمة دولية هاي تضبط كم بل سواحة إنه مرتيا برنامج كقريقان قولي دفاع وكم إذا بهذا قريقان هذا السومالي لا وحنا نكيه هذلنا hababka kala duwan ee bulshada cadaaladu yeeshaan dacwadaha loogu galo oo ah mid islaamiga ah mid dhaqanaha iyo waliba mid dawliga saddexdaas ayaanu ka wareysan doonaa gariiqan ku soo dhaw telefishinka bulsho bal saddexdan hab sida ay dadka u saameeyaan bulshada reer Soomaaliland gaar ahaan dadka la haybsooco iyo waliba waxyaabaha ku kala duwan yihiin si qoto dheer nooga waran Bismillaahi Rahmaani Rahiim Soomaaliland waxa ka jira saddex system markay noqonayso bixinta ama adeega cadaaladda oo ka kala imanaya taariikhda dadka Soomaalida leeyihiin muddo dheer markii hore Soomaalidu intaan gumaystuhu yimaan waxa lahayd nidaam dhaqameed ku noolaadaan oo soo jireen boqolaal sano soo jiray xeerar dhaqameed qabaa'ilku leeyihiin kadibna waxay nidaamka gumaysiga ka gadaal xorriyadda intii la helay qaab dawladeed abuuray waxa intaas oo dhan barbar socda shariicada islaamka xafiisyadii lagu xalilo khilaafaadka ku saleysan shariicada islaamka saddexdiiba saddex adeeg bixiye oo ka jira Soomaaliland ودتكنا سيالة كلا دوان وعادان يدا يكون حرنت هاي هاد بعيد دو هالكي جوكت مثلا ميلها ميجي تروين كي دولو نما ذكر دروك سنة وحكوا حقوق وين دقنك ميلها مقالوين كان سددي ويسبوبر جلي أخلاقيا وقفك عقارد عاصمة الشوقة خلاف صوف فوت صاروا من وذاك دقن تيجكرو حاليا من سكدين كرو حفيز شريعة الله جوكر نقول جد علماء يفردوا تيجكرو وهذه كرتين هذه الدولة العدالة إنه تكون مثلا سدد أوبشن بمرة والبوي يالان وأنا يصير حصل وحتى هذا صدق نظام العدالة بحنتو معها كوا إسباب عررية مرة قال كذوي ولا شقينية وهدي عكرت دعوات كنت تدقم كعنت كويسين محكمة دوجد بيان وهدي عكرت دعوات محكمة كنت تين علماء الله درا وهدي عكرت أنت بدن أما مرة قال كذا مثلا محكمة ده اللي بتجودين يكون رقم شريعة الإسلام مرة دبقيان حركة كي مادان شريعة الإسلام صدق دي أديك بحيه وصدق دي بتشوجان أي هذا مرة قال كذا سلف القرآن ما أي ولا شقية حركة الشقة رقم مرة لو يجي نظام كنا سومالي ده وكهو ده وين أنا فكر كيجا وضيّد يحرر رقم كسومالي ده قبيل والبوميل شراء بلواتوين كسبوا فوت صاروا وحيود درينشين دت كهو وين أما وحكرات سن دت كاسينا مرة دعوة الدقيستان قام بيسوي سالتين قام كاسان نقول شراء حركة كده حير حركة قاعد والبو كتسوق اللي تشدر خيرها مرة قام كصبح حي وحلقوا دقيا قام كهرو وحا وحلوري محي نوجي عليه هذا الرير كله تهاي وخلاف صور حمر أو قوان كاساكل خال لو دقيق مكان رير ولا وحي قانا جودي هيسه مكان دبعت صور على نوع عيد وهداني أوجو بهاي إنه مكان عصبين وحي اللي جودي قتري يجي رير كله هذا صور حمرتنا وين نقول كذا هذا أوجو بتاعي عصب تهاي قاعد بيكسو قاعد مكان حا وأصل حير دقن كصدح وحوا وأصل ومركب هو هذا مقرع wax meel ku qoran oo la eegayo ma aha xusuusta dadka siiba dadka wax garadka waayeelka maskaxdooda ku jira mar labaadku wuxuu ku sireeyay go'aamadii hore la gaaray xeerka hay'adii la reeraha u yaalay mar walba in lagu dhaqmo hadaan markaa ugu bahayn ta saddexaadna waxa la joogto permanent cid joogto oo garta u qaado sida dawladda oo kale ma aha mar walba dhibaato yaalo cid la isla tagay reerka ka Soomaaliya xataa gar waa loo wada islaan qof kasto markaa ka tirsan reerka ama reerahaas marka qaar kood reerihiisa iyo ka dhex baxdaa ee garta la bido geedka way fariisataa ama gar masaalaxaha qaado garta masaalax waa mid aan la doonaynin dadka in la kala gooyo la isu soo dhaweeyo ama gar cadaawo oo sida maxkamadda kale lagu wada gooynayo oo midna guuleysanayo midna guul daraysanayo dadka qofka dacwadda dhinaca ka abaana optionska ikhtiyaarka leh gar masaalaxan ku qaadna mise gar cadaawo hagar bayna waa la bixiyo wax la yiraahdo afi odayadan shaqeynaya markay go'aanka gaadhaana waa lagu kala dareeraa marka nidaamkaasi waa nidaam dhaqameed isbedbedela deegaanada ku kala duwan inkastoo magaca guud xeer dhaqameed la yiraahdo haddana deegaan waliba si gaara iyo hanaan gaara bay guurtidiisa iyo wadayadiisa dhaqankiisu u shaqeeyaan waxay soo wadaagaan inuu yahay xeer dadka Soomaalida iska leedahay faa'iidooyinka uu leeyahay waxa kamid ah dadku ku kalsoon oo dadku maadaama weligood yaalahooda wadayadani la joogeen garanayaan hebel yihiin odayga aadaan bay jecel yihiin dadku aqoon fiican u leh sida dhaqanka u shaqeeyo si ka duwan dawladda nidaamka dawladda waxa inuu ka yahay shuruuc af kale ku qoran yahay dad loo yaraahan la fahmaynin inay dhinac ka yihiin laakiin dhaqanka qof kasta uu fahmi karay ta saddexaad uu jabay lacag faran badan dadka kaga ma baxdo ata afraadna waxa uu go'aan degdeg ah ayay soo saaraan go'aanadooda sida kuwa maxkamadaha oo kale wax sanooyin fara badan qaatay odayadu ma inta fariistaan bay maalmeed gudahood ay go'aan ku soo saaraan dabadeedna kulkaas halka lagu kala baxaa intaas waa faa'iidooyinkiisa muhiimka ah faa'iidooyinkiisa soo kordhay waxa kamid ah saddex mas'alo meel kamid waxa weeye go'aanada guurtida dadka odayada ay qaataan inta badan waxay ka eegaan waxa fadhiya geedka rag kaliya
marka dacwooyinka dumarku qaybta ka mid yihiin dumarka looma ogolaado inay soo fadhiistaan waxa matalaya qof laba oo la qoysa marka codadkii dumarka lama maqlayo taas waa qayb ka mid ah arrimaha dacwadaha dumarku qayb ka mid kufsigu ka mid yahay ma wanaagsana dhaqan talabaad ee soo hoosgeli waxa ka wada marar badan haddii dadka dhibanaha dacwadda ka ama dhinaca dacwadda ka beelaha la haybsooca yahay oo dhinacan dacwadda qaadayaan ay yihiin dadka soo jeeda deegaanadan haybsooca sameeya ha fikirkoodii kama bixin waxa laga yaabaa inay haybsooci qayb ka noqdaan oo dadkii ay ku dulmiyaan taasina qayb bay ka noqonaysaa nidaamkan hadda casriga ah ee magaalada la yimi dowladnimada la bartayna faa'iido darrada uu keenay waxa weeye markii hore ee dhaqanka Soomaalidu kirigii xooganaa qofka diida waxa la oran jiray geedka lagu xirayaa makaaniismo ay qabiilku ku qabtaan bay jirtay markuu garta laga helo laakiin hadda qofkii garta laga helay baa laga inuu meel kale tago marka waxaan jirin nidaam dawladeed oo xoojinaya qaabka garta wadayadu soo saaran loo fulin karo marka dhibta saddexaad ee keenaysa waa xagga fulinta go'aankii haddaan dhinacyadii ku qancin inuu fulaa waxay qaadanaysaa waqti siba haddaan la qorinin oo nidaamkan casriga ah runtii aan la waafajin marka nidaamka hore aan ka soo sheekinay nidaamka dhaqankeena ku salaysan ee xeerar kale ee qabaliga inta badan ka dhaxeeya nidaamka labaad ee dhinac socda waa nidaamka dawladda ka imanaya ama state-ka cadaaladda dawladda bixiso oo ay asaas u tahay maxkamadaha xeer ilaalinta booliiska iyo qolyaha fara badan oo la mid laakiin saddexdaas ugu yihiin oo nidaam cadaalad rasmi ah iyagu maxay leeyihiin iyagu waxay leeyihiin xeerar bay ku aasaasan yihiin dastuur xafiisyo joogtaa bay leeyihiin shaqaale la yaqaanona way leeyihiin dadkuna way u caawdaan awood dawladeedna way ka dambaysaa oo qofka matalan jibiya awoodaheeda waa la xiri karaa ama xoogagiba ayaa lagu fuli karaa marka la yiraahdo cadaaladda nidaamka cadaaladda rasmiga ama dawliga waxa laga hadlayaa mid dawladdu abuuratay oo ay leedahay oo maxkamadeena caadiga iyo booliiskeena loo ashkateeyay iyo waxyaabihii ay ka mid yihiin faa'iidooyinkeeda maxaa ka mid ah joogtanimada ay wax joogtaa yihiin waa ka mid oo ay mar walba joogaan meel gaar ah loogu tagayo in awoodii dawladeed ka dambayso oo matalan haddii lagu xukumo aadi kartid inaad maxkamad aadid fulin inay leeyihiin xeerarkooduna inay qoran yihiin oo yihiin xeerar la raaci karo oo isku day kartid matalan kartaada si akhrisan kartid oo qof kasta u sahlanaan karto ayaa ka mid ah waxyaabaha faa'iidooyinka ee maxkamadaha rasmiga ama nidaamka cadaaladda rasmiga leeyahay maxaa ka mid ah caqabadahooda ama waxyaabaha faa'iidooyinka lahayn waxaa ka mid ah matalan meel walba ma joogaan halka dhaqanku yahay ku xoog weyn yahay meelaha miyada iyo tuulooyinka oo matalan miyiga iyo tuulooyinka Soomaaliya waxaana lagu qiyaasayaa haddii la isku celceliyo gobolladu inkastoo ku kala duwan yihiin 75 dadkeenu miyiga iyo dhulka miyiga u dhow tuulooyinka iyo miyada iyo reer guuraa weeye marka la isku daro dadka magaalada degan ama urbanka 25% ama 25% kama badna inkastoo gobolladu ku kala duwan yihiin taa macnaheedu waxa weeye dhulka miyiga joogo dhan iyo dadka tuulooyinka joogana dawladnimadii ma dhawa waa hay'adii dawladeed ma arkayaan taas marka waa caqabad ay leeyihiin talabaad waxa weeye waqti dheer bay qaataa oo dacwadda maxkamadda ku gashay waa la kala rafcaan qaadanaya time bay qaadanaysaa dabiici iyo waxyaabo dheeraad oo keeniyaba waa kamid waa qaali oo qofka lacag baa looga baahanaya hadduu qareen qabsanayo waa ku lacag haddaanu qareen qabsan karaynin maxkamadda intuu yimaado waraaqaheedii daabacdo maalin walba uu joogo taasina waqti ayay qaadanaysaa arrimahaasaa ka mid ah kolka waxyaabaha aanay caqabadaha ay ku tahay oo haddii aanay miyiga lagu fidin oo tuulooyinka lagu fidin qofka miyi jooga ay reer guraaga iyo buurta iska degan intaad u tagtid ma odhan kartid maxkamadaha ku kala garbax waayo maxkamaddii waxay u dhowdahay inay u dhowaato nidaamka rasmiga ee dawladda ku salaysan wuxuu la bilaabay waagii Ingiriiska dawladnimadan casriga ah ee dhulka iyo dawladdu isku xidhan yihiin Afrikaba waxa uu leeyahay reer galbeedka uu leeyahay Ingiriiskii baa yimid laakiin Ingiriisku maxkamadaha meel walba kama aasaasin garqaadidiisu waxay ku koobnayd magaalooyinka waaweyn marka wuxuu xoojin jiray in nidaamka dhaqanka lagu kala baxo meesha ay ku kala duwan tahay Soomaalida Talyaaniga gumaysan jiray Somaliland ee Ingiriiska halka Ingiriisku isagu toos u dhaxgalay Ingiriisku maxallaha Talyaanigu Ingiriisku wuxuu jeclaa nidaam indirect ah oo xuqaasha ayuu xoog saari jireen gartooda qaadaan isaga nidaamka rasmiga laakiin waxaanu aasaasanay wixii ka dambeeyay 1960kii markii xorriyadda lagu dhawaaqay ayaa in Soomaalidu maxkamadaha ay leedahay iyo booliis ay leedahay ay sameysay dib u curashadiina kolka Soomaaliland waxay ka dhalanaysaa 1991 marka saddexda marxaladood baynu soo maraynaa waa gumaystihii waqtigiisii intii midnimada Soomaaliya iyo Somaliland lagu jiray iyo wixii 1990kii ka dambeeyay nidaamkan waa nidaam la yiraahdo xafiisyo ama ashqaas xafiisyadu way soo kordheen shareecada islaamka uu eega marka dadka iskhilaafka haya la yimaadaan marka way kala duwan yihiin shareecada laftigeedii oo ka hadli doonaa sida shareecadu u dhex gasho maxkamadaha iyo dhaqankaba iyo xafiisyada shareecada ku garnaqa xafiisyada shareecada ku garnaqa waxay ku badan yihiin magaalooyinka waaweyn sida Hargeysa waa guddi culimo oo xafiis furtay oo magac leh oo u jooga cidii khilaaf ula timaada inay garnaqaan waxayna u raacaan shareecada islaamka marka dadka waxa shardi waa inay ogolaansho bixiyaan oo si qoraal inay raali ka yihiin
guddida culimada ama qofka culimada inuu garnoqo go'aankoodana ay ku garnaqayaan kolkaasay go'aan soo saaraan qoran iyagoo raacaya shareecada islaamka wixii ay ku kala xukuntay meelaha laakiinse magaalooyinka waaweyn ka sii fudsan waxa jooga culimo isaga jooga matalan sheekha tuulada jooga laga yaabaa dadku inay door bidaan inay garta u qaadaan halkii u tagi lahaayeen dhaqanka oo sheekhu noo garnaqado diinta islaamka noo geeyo kitaabka noo fur adaan ku garnaqnaa marka labada nidaam bay isugu jiraan nidaamkan yara casraysan ee magaalooyinka ee xafiisyada leh qofka fiiga yar laga qaadayo laakiin maxay ka samaysan yihiin waxay ka midaysan yihiin kow dhaqan maaha oo odayo dhaqameed u eegaya maxaa reerka u yaalay ee xeera maaha waa kow nidaam dawladeed oo dawladii ah oo formal systemka oo maxkamadiyaana maaha laakiin waa cid labadaaba ka baxsan waa sheekha ama dhowr sheekha oo waxay ku garnaqayaanna ay tahay diinta islaamka u raacaya ogolaanshana ay rabaan inay cidda doonaysaa inay siiso waxay ku imanaysaa markaad matalan dib ugu yara noqotid haddaad eegtid dhaqanka waayo halkaan leeyahay saddexdu mar walba way isdhex galaan matalan haddaad dhaqanka ku noqotid odayada dhaqanku markay go'aanada soo saarayaan waxyaabahay eegayeen shareecada ka mid ah matalan qofaa daqar loo geysanaya markay doonayaan qofkan daqarkiisa inay ka garnaqaan ee cidda lagu leeyahay xukunka saaraan culimada u dirayaan waxna culimada ay soo eega daqarkan inta lagu xaqo waa 10 halaad buu leeyahay haddana xeerkii way weegan waxa inaga maxay inooga yaalay 10 kaagar waxa laga inay inooga yaalin saddex meelood oo god la tuuro oo dadna dhaqanka la isdhex geliyo marka way isdhex gelaysaa maxkamadii haddaad eegtid marka xeerarka la sameeyo baarlamaankeena waxa dastuurku waajibinaya shareecada islaamka loo raaco marka xeerarkii baarlamaanka soo maray qayb lixaad oo kamid ah waxa waafaqsan tahay shareecada islaamka garsoorka laftigiisu dacwadaha uu qaadayo hadduu markuu xeer qoran waayo waxa lagu waajibinaya inuu shareecada islaamka ka soo qaato marka way isdhex gelayaan xeerarka qoyska oo kale waxyaaba familiga la xiriira furiinka guurka dhaxalka waxaas oo dhan biyuurli waa inuu garsooruhu u raacaa shareecada islaamka marka shareecada islaamka labadiiba way la falgelaysaa sidaas si la mida ayaa qofkan garta qaadaya marka shareecadii eegaya marka formalka eegaya matalan guddidii waxa laga yaabaa dhaqanka magaalada joogtay hargeysa joogtay ee doonaysa dhaqanka ku eegto inay tiraahdo intaanaan dhaqan ku eegin maxkamadda qoraal laga soo qaadaa si aan awood u yeelano waa isdhexgalka saddexdu sameynaya laakiin tan kale aynu hadda ka hadlayneed weydiisay la xiriira shareecada islaamka mar walba in la fahmo inaan laga hadlaynin generaali shareecadii way general si guud shareecadii saddexdiiba way dhex gelaysaa oo dawladnimadiina way ku dhex jirtaa laakiin waxa laga hadlayaa xafiis private oo gaara oo qof muwaadin oo caadi oo dawladdu mushahar siisa aanu u fadhiyo aanu hayn mushahar siinin qofkaas oo gartan uu ku garnoqo si shareecada islaamka waafaqsan marka dhinac dabeecad ahaan wuxuu la wadaagaa guddidii dhaqanka guddida dhaqankuna waa dad caadi oo meel iska fadhiyo dawladda xiriir lahayn khilaafaadka xalisha halka guddidaasi mar walba ay awoodda saaraysa in xeerka reerka eegto guddida khilaafaadka ee shareecada islaamka waxay awoodda saaraysaa in shareecada islaamka ay u eegto magaalooyinka waaweyn marka la joogo waa xafiisyo la yaqaano miyada iyo tuulooyinka marka la joogo laakiin xafiisyo rasmi maaha taasina waa nidaam soo kordhay inay xafiisyo noqoto oo waxa soo kordhiyay inay ahayd korriinka ay koreen dadka siiba ganacsatada ah ee jecel yihiin mar walba in khilaafaadkooda degdeg loo xalilo nidaamka maxkamadeed ee waqtiga dheer qaadanaya aan la raacin ayaa keenay in la galo waxyaabahaasi jira dhaqanka xafiisyada shareecadu aanay gelin waxyaabaha faldambiyeedka la xidhiidho oo dhan iyagu ma galaan way iska riixayaan maxkamadaha la gala wax dambi baa la xidhiidho crime la galo matalan boob dhac dil waxaas wax mar walba maxkamadaha qaadan way booliiskii baa qayb ka ah oo qofaa la xidhaya laakiin waxay qaadayaan mar walba wax dabeecadiisu madani tahay hanti la isku haysto maaragtay shil dhacay oo kale dhici karta oo labadii qof leeyihiin shareecadu maxay ka qabtaa labadan qof yamaan gardaran iyo waxyaabaha la mid ah dhaxalkii baa ugu muhiimsan dhaxalka iyo arrimaha qoysku arrimaha mar walba ugu muhiimsan culimada looga tago laakiin haddana hadda waxaa soo kordhay waxyaabaha ganacsiga la xidhiira oo ganacsatadu marar badan baa khilaafaad dhex mara mana jecla inay muddo dheer maxkamadda ku jiraan marka iyaga laftooda waxay u sahlan inay tagaan sheekhan culimada ah saacadaha intuu ku dhageysto dacwadii markiiba go'aanka degdega soo saaray xafiisyadan kolkaa shareecada ku salaysan maxaa caqabaday leeyihiin maxay faa'iido leeyihiin haddaan si gudboonaa faa'iidadoodu waxay dhaqanka kala mid yihiin degdega waxay dhaqanka kala mid yihiin kalsoonida qofku marka shareecada islaamkan kugu qaaday qof muslim yahay kalsooni fiican buu ku qabaa calaamada labada qof marka xukmiga uu rido inaan qofna ka cadhoonin iyagoo heshiis ay ka wada degdegsiimada kamid ah jabnaanta kamid ah oo aanay waqti badan ka qaadanin lacag fara badan ka qaadanin marka faa'iidada dhaqameedka kala wadaagta maxaa caqabadaha marka iyaga soo foosay mid kamid filaanta ka mid noqonaysa maadaama aanay xoog dawladeed ka dambeeynin kuwooda aan maxkamaddu soo amrin in la fuliyo hawl bay qaadanaysaa marka waxa dhici karta iyadoo shareecada islaamku ku xukuntay guddidii shareecada islaamku inuu ku qanci waayo haddana maxkamadda ka soo ashkateeyo waxa dhici karta marka qaarkood guddidii dhaqanka kula tago haddana guddidii dhaqanka marka waxa la forum fish bay yiraahdaan fikriisa maadaama saddex nidaam jiro qofkii wax ka fikiraya keebaa ay dana marka waxa weeye wallahi dhaqanka aniga ay dano deedna dhaqankiisa kaga dhigo qofkii ama guddida shareecada ay dana oo guud ama haddii laga xukumayo ma maxkamaddan tagay kuma maan qancin waxay wadaadadu yiraahdeen because sharci inoo yaalo ku qasbaya go'aanada guddida culimadu soo saartay in la raaca ma jiro halka gaabis baa ka jiro qawaaniinteenu waxa la sameeyay dhowr iyo 70 xeerarkiina madaniga la sameeyay oo nidaamyadan hadda casriga ah ee garqaadida ma waafaqsana taasina waxa caqabada ay leeyihiin marka xoogii fulineed
dawladnimo ayaan ka dambaynin iyaga iyo dhaqanka mid kale waxay kala wadaagtaa dawladda sida aanay dawladdu meel walba u joogin baan culimaduna ugu fidsanayn dalka oo dhan culimada casriga waxay u badan yihiin magaalooyinka waaweyn bay u badan yihiin marka miyada culimadii way ku yar yihiin waxa laga yaabaa tuulooyin faradhan oo fara badan in hal sheekh joogo oo wax meherin kara ama dadka maaragtay arrimahooda shareecada ka qaadi kara marka taasina waxay xoojinaysaa dhaqanka marka haddaad eegtid boqolleyda dadka ku kala baxa dhaqanka ayaan anigu odhan karaa baa ka badan marka la isku daro dadka maxkamad iyo shareeco ku kala baxa because dadka intiisii badnayd dhaqanka ayaa u dhow oo dadka siiba miyiga iyo tuulooyinka jooga horta saddexdaba mid bay ka sinaanayaan saddexdaba inta badan waxaa u badan dadka garta qaadaya waxay u badan yihiin dadka wax haybsooca ayay u badan yihiin qofka bini aadamkana fikirka nololeed ku soo noolay haddaanu iska saarin go'aamadiisa way qaabeeyaan hadduu takoor aaminsan yahay hadduu dadka liidayo way saameynayaan marka taa way ka siman yihiin waa mu baahan in la raaco waayo waxa laga yaabaa qofkan garsooraha ahina hadduu haybsooce yahay oo fikirka qadan aaminsan yahay oo loo yimaado inaanay fikirkiisii keenaynin maxkamadaha iyo booliiskana kuma badna beelaha la haybsooca nidaam cad oo qoran oo dawladeed oo ka yaalaana ma jiro matalan oo la leeyahay haddii qofka booliiska ama qofka maxkamadda ama xiraalinta ay qof haybsooco ama uu la dhaqmo si liidashaa tallaabooyinkaasaa laga qaadayo inaad soo ashkataysaa kuma yaalaan taas way keenaysaa talabaad kalsoonidii ma weyda maadaama muddo dheer nidaamka dawladeed uu soo takoorayay ama aan wax ka qabanaynin waxaa laga yaabaa qofka beelaha la haybsooca inaanu ku dhiiran inuu tago maxkamadda u arko inay tahay goob haysocdo dhaqankuna saan sheegay waa meelaha ugu daran waayo waa meel aad u adag oo conservative oo ku kakan dhaqanadii hore haybsooca ahaa xafiisyada shareecada markaa haddii shareecada sidooda loo reeco shareecada waxay ku salaysan tahay sinaan sida dastuuradu kuugu salaysan yahay sanaan laakiin iyada laftigeeda waxaa ku badan dadka ka soo jeeda beelahaas marka maxaa xalku noqonaya inay laba mid weeye in dadkan garta qaadaya saddexda dhinacba ay noqdaan dad og oo aan dafirsanayn jiritaanka haybsooca waayo dafiraadda qofku dafiro oo yidhahdo dhibaata ma jirto waxaa meesha ka saartaa inaad aqoonsatid dhibtan oo aad dabeedna aad qaabatid tallaabooyin proactive ama tallaabooyin hore oo aad dadka u fudeydinaysid waayo marun helidda cadaaladdu accessku wuxuu doonayaa in albaabku uu noqdo mid cid waliba ka soo geli karto haddii jiraan kolkaa waxta qofka cidhiiraya oo takooraya ama aan u fudeydinayn ama aan xaafadiisii matalan ka jirin booliiskii maxkamaddii aan xaafadiisii u dhoweyn ama qofku yaqaano deegaankiisii ka soo jooga aan maxkamaddii fadhiin garsoore ahayn ama xiraaliye ahayn ama booliis ahayn qofku maran heliddii cadaaladda way ku adkaan sida haweenka oo kale hadday markay istaado saldhigga tag ka waddada u horeeya fadhiya ilaa kawshaya nin yahay oo kuya maxaad rabtaa ay doonaysa inay kursi report garayso way iska noqonaysa because ku odhan kari ma ka qajilaysaa raggan ku odhan kari mayso waa la soo kustaa waxaasa ay ku dhacay laakiin hadday gabadh aragto waxa laga yaabaa inay ku tahdo dhibtaas ay ku dhacday maxaa yeelay deedna gabadhii ay hagto marka waxyaabaha u baahan wax laga qabto weeye talabaadna waxa weeye beelaha la haybsooca mar walba inay xasuusnaadaan jiritaanka saddexda waa inaad xasuusnaataa jiritaanka sharcigan waxay keenaysaa inaad ka fikirtid halkee baan geystaa xal marka taasaa muhiima ma guddida shareecadan ula tagaa mashaakilkayga oo aan ku buuriyaa inay shareecada islaamka ay raacaan shareecada islaamka waxay weyneynaysaa qofnimada iyo aadantinimada ee dadka iyo haybtooda awoodda ma saarayso mise maanta waxay dana booliiska iyo maxkamadda haddaad kolkaa xusuustaasi jirto ama ogaalkaasi jiro adigu lafteedu kala doorasho fiican baad samaynaysaa marka mar walba inaan ku dhiirigelino beelaha haybsooca waxa weeye inay ogaadaan jiritaanka nidaamyada kala duwan hadba ka u dantaana markaa ay aadaan sida dadka kaleba hadba ka u dantaa ay aadayaan mid lagu riixin iyaga oo mid lagu jiidan oo qofka is hayaan saw aanu ku jiidanta uu dan u arko matalan hadduu qofkan is hayaan uu beelaha kale ka soo jeedo isleeyahay maxkamadda ku wanaagsan oo hadduu doon ka lacag badan yahay matalan oo isleeyahay aduu lawyer saraad qabsan kartaa nidaamkaad kala taqaanaa midin adeerkaabaa jooga waa aadan okay walahi aniga waxay iga wanaagsan inaan u tago sheekh dir oo yidhahdo sheekhow ii baadh kitaabka anigu ma garanayo beelaha iyo waxaana ku murmaysaan waan u sheego caddeeyo jiritaanka dhibaatada mise waxay wanaagsan maxkamadda mar walba inay taasi jirto laakiin saddexdu anigu fikirkayga way ka midaysan yihiin in nooc haybsooc qalbigooda ku jiro saddexda waxa looga bixi karayaa saddex arrimood oo muhiima mid waa wacyigelin ballaaran oo dadka wax haybsoocaya la ogeysiiyo haybsooco xaaraantinimadiisa sharci iyo kiisa diineed laba in dawladdu soo saarto hanaan qoran iyo nidaamiyo lagu ribood garayn karo cidda wax haybsoocda tallaabo sharciyana lagaga qaadi karo haddaan anigu garsoore ahay ama qareen ahay oo qof aan ula hadlo ama ula dhaqmo si haybsoocnimo ah oo hadda maanay jirin nidaam tallaabo laygaga qaadi karaa sidee qofka dhibanaha ay kolkaa ugu soo dhiiranaya maxkamadda iyo cadaalad kuma soo dhiiranaya laakiin haddii nidaam caynkaas soo qoran jiro reporting qofkii uu sheegaya xonay kan uu yahay haybsooco tallaabana lagaga qaadi dad shaqooyinkooda ku waayaan because arrimaha haybsooco haddaan tallaabo adag laga qaado oo la xanuujin dadka sameeya sharciyan sameeya dadka dawladnimada ku jira dadka qaar waa dad shacab oo muddo qaadanayso inuu ka saaro laakiin qofku markuu dawlad noqdo booliis maxkamad waa inuu noqdaa neutral dhexdhexaad
waynaanu bulshada wax kasta ay ku kala duwan tahay aanu si nabasagu soo hadal qaaday afkiisa ka odhan ficil ka odhan muuqiisa ka noqon ama qabiil ha ahaato ama mabda siyaasadeed ha ahaato ama haybsooc iyo fikrada kale ee la mid ka noqoto marka dawladdu waa inay tilaabooyin adag qaadda siba baarlamaanku waxaan qabaa inay tahay inuu shuruuc ka soo saaro guddida cadaaladda waa inay ka soo saarto nidaamyo garsoorayaasha ku waajibinayso oo garsooraha qaladka caynkaas la sameeyo guddida cadaaladda shaqada kaga erido ayay naga tahay saddexaadna waxa weeyaan cadaaladda loo dhaweeyay deegaanadaas oo saldhig booliis oo rasmi ah laga furo matalan oo maxkamad degmo laga furo ila duruuf gaar ah baa jirtay ma oran kartid maxkamadda degmada kale ha lala wadaago laakiin markaad maxkamaddii degmo ku soo dhaweysid qofkii u dhow yahay wuu ku soo dhiiranaya kolkaa inay dumarkii dacwadihii la tagaan inay dhaxalkiisu la tagaan ayay dadkii ku soo dhiiran karayaan ogaalkii ma jirto cid inta la haybsoocay dacwadoodii loo qaaday haybsooca darteed la leeyahay qofkani wuxuu dhibana u yahay haybsooc shuruucdiyaan jirin shuruuc cadcad oo qeexaysa haybsoocii ama takoorkii sheegaysana tallaabooyinka la qaado wadamada sidaynoo kale ah dhibaatooyinkan haybsoocay takoorku ka jira nidaamyadaasay soo saaraan marka qofkii bay u sahlaysaa definitionkii baynu fahmayna qeexidii maxaa haybsooca tallaabadii laga qaadayay iyo ciddii qaadaysay marka dadku way ku dhiiranayaan markay dadku ku dhiiradaan dacwado caynkaasoo fara badan gudbiyaanna dadka wax haybsoocaya way isilaalinayaan qofkii markaa xukuumadda iskale iyo baarlamaanka dawladda Soomaaliland waa mas'uuliyad qodobka 8aad ee dastuurka Soomaaliland baa waajib ka saaraya in la qaado tallaabo kasta oo takoorka iyo haybsooca lagu tirtirayo waa dhaqan xun oo qalafsan oo ay tahay in la tirtiro dastuurkaana ku waajibinaya qaabka loo tirtirayana waa in siyaasado iyo shuruuc iyo tallaabooyin la qaado in afka uu laga yiraahdo haybsooc waa qalad ma because haybsooc waa qalad kaliya kuma dhamaan karayso aan waxaan ku talin lahaa nidaamka marin helidda cadaaladda ama access justice wax weyn laga bedelo maanta sida cadaaladdeenu u qaybaysan tahay si guud isku duubo waa mid u fudud qofka lacag haysta iyo qofka connection iyo xiriir leh ayay u fududahay qofka soo faqiira qofka soo laabsooco dumarka miyiga tuulooyinka dadkaas oo dhan waxay noqonayaan cadaaladii way ka fogaanayaan inay helaan marka cadaaladii waxay noqonaysaa qofka magaalo jooga lacag haysta wax fahmi kara aqoon badanna leh beelihiisuna xoog weeyay marka taa weyn wax laga bedelaa waa in la fidiyaa cadaaladda fidin expansion lagu sameeyaa waa in miyada la geeyaa tuulooyinka la geeyaa beelaha haybsooco loo dhaweeyaa waa in la dhigaa ka mid noqosho la abuuraa la yidhahdaa yaa cadaaladda iyo garsoorka ka maqan haddee yaa ka maqan oo in ku jirin oo ay tahay in lagu soo daro waa in mar walboo dad fara badan oo kala duwan cadaaladda ku jiraan waxay soo jiidaysaa ku dhiirashada inay dadku cadaaladda u soo doontaan cadaaladaad weji taqaanid baad u tegaysaa ood garanaysid laakiin cadaalad aad garanayd ka baqaysid uma tegaysid because cadaaladdu waa inay dabacsanaataa waa inay fududaataa waa inay naxariis leedahay waa inay dadka u dhowdahay waa inay jaban tahay cashuuru mid ka mid a mashaakilka ayay ka mid tahay matalan bulshada haysta hadday jaga isku qabsadaan magaalada dhexdeeda ku yaalla beelaha labsooco dhulkooda waa dhulka ugu qaalisan magaalada oo dabeedna la useedo ashkatow oo la yidhahdo waa inaad bixisaa $10,000 ama $20,000 ma heli karaya laakiin waa in la sameeyo nidaam markiiba la fahmi karo oo la odhanayo cashuurta waa lagaa dhaafaya waayo maaha nidaamka maxkamadu inuu noqdo nidaam lacag uruursi maaha dowladda cashuur fara badan ka hesho way noqotaa midaha dadku ay ku soo dhiiradaan marka waxaan la diba qaabayn ama dib u habayn sal ballaadhan oo ujeeddadu tahay qofka haddee qofka maaha dhismayaasha dhismo weyn maaha badinta maaha waa inay tahay qofka adeeg bixiyo weeye haddaad u fiirsatay shirkadaha telefoonada inaga iibiya adeeg bay inaga bixiyaan adeegga waxay jecel yihiin inuu inoo dhowaado si inuu soo gallo haddii adeeggeedu kaa fog yahay uma tegaysid laakiin haddii adeeggeedu kuu dhow yahay dhowr bolo kuu jira waad u tegaysid marka nidaamka cadaalad mar walbuu fido oo dadka ku dhowaado dadku cadaalad bay soo doonanayaan mar walbuu ka durko ka kanaadona dadku way ka fogaanayaan horta anigu waxaan ahay dadka aaminsan in saddexda nidaam jiritaankoodu aanay dhibaato ahayn waayo maadaama inaan nidaamkeenu dowladeed dalkoo dhan ku wada fidin waxa muhiim oo dadku adeeg cadaaladeed kastoo heli karaan inay helaan inta dowladnimadu fidayso hadba intii dowladnimada la fidin karo la furo marka qofka shareecada xafiis shareeca garta u qaadi karaya u garnaqo kii dhaqan u garnaqi karaya u dhaqo kii dowladnimo gaari karaya ana dowladnimada gaaro ugu dambeyntii gariiqan guulada difaac waad maasan tahay barnaamijkan telefishinka bulsho saad ugala qayb qaadatay waa maxay fariinta aad u dirayso baylaha la haybsooco si ay u doontaan cadaaladda ay rabaan ama ay dacwadahooda ay u gudbistaan waxaan bulshooyinka la haybsooco ku dhiirigelin lahaa si weyn inay ku soo dhiiradaan kuna adkaystaan in nidaamka cadaaladeed ay cadaaladu soo doontaan kuwooda iska hortaaga ama diida ama aan u qaabaysnayna ay ku adkaystaan inay ka rafcan qaataan kuwa kale u tagaan waayo waa gidaarkaasi wuxuu ku jabayaa marka dad badan ku soo yaacaan oo yiraahdaan cadaalad baan xaq u leenahay waan doonaynaa dimaan ay sameeyaan marka inay cadaaladda soo doontaan hadday saldhig tahay hadday maxkamad tahay hadday tahay xeer ilaalin tahay ku adkaystaan u samraan si uu nidaamku isu bedeli karo reform u iman karo loo aqoonsan karo dhibaatada jirta ayaan kuusan haddii taasi iman weydo wax dhici karta dulmigu inuu sii xoogaysto oo cid kale ay sharciga gacanta ku soo qaadato وهاجاك داود أنت سواء نكسو أفمرنا قريب طلبات برنامج هذا مرن هلد عدالة أو أسكا كاشدين EAG وسارد عدالة إسلام مركز سنة فلنسو
hay-adda maxalliga ah ee aadam academy anigoo luqmaan maxamed faaraxa faad axmed kaariyo oo duubidda isku dubiridda iyo hagaajinta bay noo joogay waxaan kaga tegaynaa salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu intaydin ku kulmayno barnaamijka kan xiga toddobaadka dambe hadduu ay baqadaro